sidee hal shirkad oo Shiineys ah u khasaarisay wax ka badan 1 trilyan shirkadaha tiknoolajiyadda ee laga leeyahay dalka Mareykanka. OpenAI waxay ku bixisay qiyaastii 100 milyan si ay u horumariso adeegeeda GPT-4. Shirkaddan Chinese-ka ah ee la dhaho DeepSeek waxay soo saartay moodal la mid ah midka ChatGPT oo keliya ku kacaya lacag ku dhow 6 milyan oo keliya. Application-ka DeepSeek wuxuu noqday abka ugu badan ee lasoo degsado isagoo dhaafay ChatGPT. Tani waxay walaac weyn ku keentay shakhsiyaadka iyo shirkadaha maalgashada AI-ga, waxaana hoos u dhac weyn ku yimid qiimaha saamiga ee Nvidia. Nvidia waa kambaniga ugu weyn ee soo saara jibka, waxay dhumisay malaayiin dollar. DeepSeek waxay joojisay diiwaangelinta kadib markii lagu qaaday weerar dhanka ammaanka ah, taasoo wax badan bannaanka keentay. Application-ka DeepSeek ma ogola in lagala hadlo arrimo ku saabsan madaxweynaha China, Taiwan. Tani waxay keentay su'aal weyn: miyay cunaqabatayntii uu ku soo rogay madaxweynihii hore Mareykanka Joe Biden ee ahayd dhanka jibka ka dhigtay Chiinuhu mid horumara?